waxaan idin wadaa maanta dhacdo markay ku soo gaarto ama aad dhegeysato alla ama kaagi doonto waxaan idin hayaa dhacdo markii aad daawato ama dhagaha uu ku dhacaan murugo aad dareemi doonto dhacdadaas oo weli ku soo gaarin bal ka waran adigoo caafimaad qabo oo dhib qabin cidaadii reerkaaga dhex joogo nabad aad ku soo toosteen laba wiil oo rooroon oo dhashay ay ku sheekeynayaan geesaha ka fadhiyaan hal mar joog uu isbedelo jug inta yeerto uuro iyo qiiq idin qabsado markaasaas tiraado fiiriso aad aragto wiil qaadanaya naftii ugu dambeysay ay ku sii dabayar tahay ee wada neefsashadii u dambeysay wado saas kale aad fiiriso aad aragto kii kale oo asagana cirbaha iyo gacmaha dhulka la dhacay oo wax shanqar ah aysan ka yeeleen laakiin sakaraad ah adoon waxba u qaban karin dhaqdhaqaaqi karin adiga laftirkaaga waa dhaawac xun uu kusoo gaaray ku celiyay haddana aragtay fiirmo dambe ku celiyay arkay wiilkii oo nafbaxay gurmad idiin soo gurmado la idin qaado adiga wiilkii kale kii dhintayna maro lagu daboolo go diyaarad la idin saaro markii caafimaadka la idiin sii waday oo magaaladii korkeeda maraysaan kii kalena uu nafbaxo maxaa dareemi lahayd marka wax lagu sheego ama dhacdo aad maqasho waxaa loo baahan yahay inaad ka soo qaato sidii adiga ay kugu dhacday oo kale hal saac intii goobta caafimaadka la idiin sii waday ee diyaaraddu ay sii socotayna kii kale meydkiisa aad sii wadato ilaahay baan kugu dhaarsay maxaa dareemi lahayd arrintaas waxa ay qabsatay oo ay ku dhacday walaalkeen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmada Buurdhubo haddana ah kusimaha gudoomiyaha Buurdhubo waa ninka hadda xilka hayo wiilashii labada wiilna waa kuwa ee hadda maanta adduunka ka maqan ee qarax uu dilay ninka aan kaga sheekeynayo oo intaasoo dhib ah ku dhacay oo waayay labadiisii wiil oo asaga laftigiisa jajabay ee muddo dhan isbitaalka yaalay bal ka warrama maamulkii uu ka tirsanaa ama uu xilka u hayay heer gobol iyo heer stateba haddaysan dhihin wixii ku gaaray waan ka xunna bal ilma adeerayaalo Soomaaliye bal ka warrama waa dayac kale waxaa la rabaa qofka markii uu dhib ku dhaco in la yiraahdo waa kula murugoonaynaa waa ka xunna wixii kugu dhacay oo la samirsiiyo oo labadii wiil ee hortiisa ku nafbaxday xataa looma soo celin karo ilaahay baa qaatay loo muujiyo dareen in la dareemayo maamulkii uu xilka u hayay gobolka kii state ee Jubbaland oo leeyahay lagu abtirsadaa intaba ma aysan dhihin arrintaas waa ka xun xataa uma aysan muujin xataa bal iska badaaye madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid oo gadayimi bay sarkeen Maxamuud Sayid wuxuu ku yiri gudoomiye inuu dhib ku gaaro waa ognahay inay wax kugu dhaceen waa ognahay waana ka warqabnaa laakiin ka maamul ahaan waan kala qayb qaadanaynaa dhibka kugu dhacay halkii bay u taagantay waan kala qayb qaadanaynaa waa beenta ugu badan ee maamulka Jubbaland aan mar walba ku dhaliilo ballan ma leh qowl ma leh ahdi ma leh qofkana munaafiqnimada arrimaheeda waay hadii aad ballantaan ballanta aan fulayn haday kula ballamaan aan fulayn haday wax ballan qaadaan aan baxayn wax run ah aan aqoon waa qayb munaafiqnimada kamid ah bal ka war madaxweyne ku-xigeenkii bay arkeen waa kala qayb qaadanaynaa dhibka ku gaaray buu yiri iyo wiilal inay ka dhinteen guriga burburay wixii oo dhan waa la soconaa habaan mansuur waxba kama jiraan uu sheegay maanta marka waxaan dibinteeda u soo qaatay ninka intaas soo dhib ah ay ku dhacday Soomaalida kalena qof markuu ka xanuunsan ay media taagan yihiin oo leeyihiin gurmad baan rabnaaye oo dhib baa igu dhacay warnin asagina burburay gurigiina ka gubtay
لبدي سويل وجعله أدونك أولاد بان جعله ضد بدلنا أي سبتالك الراديان قاركود وطلع وحدتكم قولي من هيوا أولادي لبدي سويل وجعله أي كهرن في بحال ولي ما أهلك أنت ميديا صفر لست حتى العلاج كشكي ورباهين مركل اللي يرادنا أنا أو داوع الشيء أو أريد قدومي وكحجين دقمة بوردوبا اللباد باقرح كلها تاريخ القربي هاي صدق طبعا كي بشي طبلات لابد كل يصدق على تكي هاي مركي دايس ورباهين تمقصور لنا ويسوق عادي بالوحير إلى دقيسو راديو كلمية KNN راديو كلمية FM تمقالات المقدشو راديو كلمية أو كور بحنايو بل إلى يردي قصاري isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay gudaha guri uu degan yahay mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Gedo kaas oo ku yaala degmada Buurdhuuba ee gobolkaas qaraxa ayaa si gaar ah uga dhacay guriga uu Buurdhuuba ka degan yahay gudoomiye ku xigeenka labaad ee degmadaas Nuux Xasan Daawud xilligii qaraxa uu dhacay oo ahayd salaadii jimca kadib guriga waxa ku sugnaa mas'uulka qaar ka mid ah eheladiisa iyo dadyo kale oo la sheegay inay u ahaayeen marti dhacdada muddo ka soo wareegtay waxaan si u soo qaataan kuu sheegi kow qof been lagu maamaale ee waa nin samir badan islaam ah hagaagsan aanan aqoon waxyaalaha dad badan ay yaqaanaan waadna arki lahaydeen asagoo media taagan oo leh Soomaaliya la ii gurmada dhibba ugu dhacay laakiin qofka markuu Ilaahay og yahay tala saarto uu og yahay in Ilaahay waxaan u keenay uu og yahay in Ilaahay siiyay markii hore uu og yahay Ilaahay inta weydiisto badal qeyr qabo yiraahdo Ilaahu awal badaa siistay haddana adaa iga qaatay Ilaahu badal qeyr qabo uu yiraahdo iimaan san waa sida qofka mu'minka ah lagu og yahay qiyaaso adiga haday kugu dhicilay qiyaaso rag garab taagnaa ee maamulku u ahayna ay ku jaakiraan oo kiyaano ku gashadaan maxaad sameyn lahayd waxaan kale u soo qaatay gudoomiye ku xigeenkii labaad baa saas loo galay oo maamulada iyo nimanka madaxda telefoonada ka hayay maxaad u baleynaysaa qof shacab ah haday ku dhicilay wax intee leeg bay la qaban lahaayeen nimanka maamulkoodii saas yeelay shacabkoodii maxaad u malaysaa horeyna waxaan kugu sheegay warbaahinta jubbooyinka dhacda ama ha horeyso ama ha dambayse inay garab taagan tahay qof walbo oo gobolkan ka soo jeedo ama uu dhib ku dhaco ama horey uga dhacay oo la qariyay ama hadda uu ku dhacay intaba tabinteeda inaan soo tabinaan u taagan waa aniga birta calanka oo idin leh haddii uu muuqaalka soo gaaro sii share gareeya meel fogna gaarsiiya